Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan shaki ku jirin in maanta dunida haleeshay ahmiyadda uu leeyahay afka hooye. Arrintaana waxay timid kadib markii la sameeyey tijaabooyin iyo cilmi-baaris dheer oo wax ku ool ah. Waxaan la ogaaday in afka hooye wax lagu bartaa oo dhiirigelin leeyahay, isla markaana suuragelinaya in la helo aqoon-yahano hal-abuurayaal ah. Tanina waxaa ku baraarugay dowladaha hormuudka u ah horumarka caalamka ee dhanka maadiga. Waxayna goor hore bilaabeen in afkooda hooyo wax ku bartaan, taas oo aakhirkii keentay inay gaaraan horumar lixaad leh. Haddaba ahmiyadda ay leedahay in afka hooyo wax lagu bartaa waxay noqotay maanta mid si weyn dunida ugu baraarugsan tahay, oo hay'adda UNESCO waxay dowladaha ka codsatay in afkooda hooyo ubadkooda wax ku baraan. Waxayna UNESCO caddaysay in waddamada hormaray ay afkooda hooyo wax ku bartaan. Dhanka kale, warbixin ay soo saartay hay'adda waxay ku sheegtay in 19 waddan oo horumar weyn ka gaaray dhanka tiknoolajiyadda ay carruurtooda afka hooyo wax ku baraan. Sidoo kale markay cilmi-baaris sameynayaan ay adeegsadaan afkooda hooyo. Sidoo kale cilmi-baaris goordhow soo baxday waxay sheegtay in 500 ee jaamacadood ee dunida ugu fiican ay ardadooda wax ku baraan afkooda hooyo. Tani loolama jeedo in aysan waxtar lahayn luqad qalaad, laakiin halkaani waxaa la adkeynayaa inay muhiim tahay in afka hooyo wax lagu barto, waayo asiga ayay ardayda wax ku fahmayaan. Dhanka kale waxay sidataa dhaqankeeda. Haddii carruurteen afka Faransiiska wax ku bartaan, waxaa hubaal ah in dhaqanka Faransiiska qayb mug leh ka qaadanayaan. Ugu yaraan garbaha ka hadleen oo afka ha maroojiyeen. Wax oo dool ah waa naga soo gaara afkaasi. Haddaba dadka waxay u kala qaybsameen mucaarad iyo muxaafad marka ay timaado afka Ingiriiska barashadiisa iyo isticmaalkiisa. Oo waxaa jira dad badan oo luqadda Ingiriiska jecel in wax lagu barto, isla markaan u arka afka Ingiriiska luqadda ugu fiican ee maanta wax lagu barto. Waxayna dhahaan luqaddani waa af casri ah oo dunida idil aqoonta isku dhaafsato. Waa af caalami ah oo looga hadlo fagaarayaasha caalamiga ah. Sidoo kale waa luqad inta ugu badan saxaafadda caalamka adeegsato, oo waa afka shaqaalaha caalamiga ah iyo shirkadaha waaweyn. Sidoo kale waa afka inta badan loo adeegsado shabakadda internetka, oo in ka badan 90% qoraalada lagu soo daabaco shabakadani waxay ku qoran yihiin afka Ingiriiska. Haddaba waa muhiim, weliba waa lagu qasban yahay in afkaani la adeegsado oo wax lagu barto. Dhanka kale waxaa jira dad badan oo ka soo horjeeda aragtidani, isla markaana diidan in afkaani la adeegsado sidoo kalena wax lagu barto. Waxayna dadkani ku doodayaan in afka hooye ee ummad leedahay uu xambaarsan yahay dhaqamo badan, isla markaana uu u taagan yahay jiritaanka ummaddaasi. Marka haddii ay ka tagaan afkooda, taasi waxay la macno tahay isu dhiibid ummad kale. Haddaba tan oo kale ma sameeyaan ummad caqli leh oo soo jeeda, isla markaana doonaysa inay gaaraan horumar. Dhanka kale ay ahaadaan ummad jirta, waayo afku wuxuu muujinayaa jiritaanka ummadda. Haddii aan milicsano dhanka ummaddeena Soomaaliyeed, maanta wuxuu marayaa afkeenna meel halis ah oo wuxuu ku dhow yahay inuu dabar go'o, waayo dadkii iska lahaa afkaani ayaa ka santaagay inay adeegsadaan. Xitaa Soomaalidii waxay iska diideen inay magacooda caadiga ah ku qoraan afkooda hooyo. Dhanka kale waxaad arkaysaa in Soomaalidii goobaha ganacsiga iska lahayd sida dukaanada, maqaayadaha, hoteelada ku qoreen magacyadooda afka Ingiriiska. Waxaa in lala yaabo mudan in ganacsatadani macaamiishooda dhammaantood yihiin Soomaali. Haddaba waa qariib, arrintani maxaa ku kalifaya ganacsadaha Soomaaliyeed in goobtiisa ganacsi ku qoro af Ingiriis? Waxaan u malaynayaa inay jiraan 3 umuurood midood. Midda koobaad, jahli oo ganacsadaha ma garanayo wax uu qoran goobtiisa ganacsi. Midda labaad, ilbaxnimo yar oo jaahiliyad ku dheehan tahay oo ganacsadaha goobtiisa ku qoray afka Ingiriiska wuxuu u malaynayaa inay tahay xadaarad weyn. Midda saddexaad, waxaan tuhunsanahay in uu jiro qorshe ay soo maleegeen cadawga Soomaaliyeed oo lagu doonayo in lagu burburiyo afka hooyo. Inkastoo arrintaani caddayn aan u haynin, haddana waa arrin dhici karta, waayo waddankan xuduudihiisa idil way iska furan yihiin oo cid walba ayaa soo geli karta. Wuxuu leeyahay cadow badan oo heli kara dad Soomaaliyeed oo qorshihiisa sahlan u fulin kara. Dhanka kale, jiilka Soomaaliyeed ee hadda nool waxay u badan yihiin dad ku nool magaalooyinka, carruurtoodana waxay wax ku baraan afka Ingiriiska. Waxayna tani keentay inay hoos u dhacdo daryeelkii u baahnaa afka hooye ee Soomaaliyeed. Waxaan aragnaa madaxda Soomaaliyeed oo khudbooyinkooda uusan fahmi karin odayga Soomaaliyeed ee ku nool miyiga, maadaama mas'uuliyiinta hadalkooda uu ku badan yahay kelmadaha Ingiriiska. Haddii qofka mas'uulka ah ee laga rabay inuu ilaaliyo afka hooye sidaan u dhaqmayo, maxaad u malaynaysaa inuu samayn karo qof caadi ah oo Soomaaliyeed? Waxaad arkaysaa dunida kale qof mas'uul ah oo si fiican u garanaya afka Ingiriiska, laakiin aan inta badan ku hadlaynin. Haddaba dhibaatooyinka haysta afka Soomaaliyeed way badan yihiin, halkaanina laguma soo koobi karo. Laakiin Soomaaliya ogaada in afka Ingiriiska uu baabi'iyey tiro afaf ah oo dunidani ka jiri jiray. Haddii aan sidaan ku sii soconno, ogaada in afkeenna uu mari doono
afafkaasi maanta dunida ka dabar go'ay dariiqii ay mareen. Haddaba waxaa jirta arrin aad soo shaac baxday kadib markii dunidan isku bedeshay tuulo yar oo Ingiriiska kor ka maamulo. Arrintaas oo ah in qaar ka mid ah madaxda dunida saddexaad shacabkooda ku qasbeen inay afka Ingiriiska wax ku bartaan. Haddaba waxaa ka mid ah madaxdaasi shacabkooda ku qasbay inay afka Ingiriiska wax ku bartaan ra'iisul wasaaraha Malaysia Mahathir Mohamad, ka oo keenay sanadkii 2002 mashruuc ardayda Malaysiyaanka ah ku qasbaya inay afka Ingiriiska ku qaataan maadooyinka sayniska ee xisaabta. Mashruucani waxaa ka hor yimid tiro badan oo aqoon-yahano oo Maleesiyaan ah, waxayna aqoon-yahanadani ku doodeen in afka Ingiriiska uusan u wanaagsaneyn shacabka Maleesiyaanka, waayo xilligii gumeystaha oo ardayda Maleesiyaanka ah afka Ingiriiska wax ku baranayeen, waxaa jaamacadaha u gudbi jiray tiro yar oo arday ah oo aan ka badnayn 2%. Haddaba madaxdii Malaysia oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha waxay ku adkaysteen in ardaydu wax ku bartaan afka Ingiriiska, gaar ahaan maadooyinka sayniska ee xisaabta. Wixii ka dambeeyay sanadkii 2002 shacabka Malaysia waxay dhinac isaga tuureen afkoodii hooyo dhammaan goobaha waxbarashada min fasalka koobaad ee dugsiga hoose ilaa ay jaamacadda. waxaa ka dhaqan galay in afka Ingiriiska wax lagu barto. Dhanka kale waxaa jirtay cabsi weyn oo ay muujinayeen aqoon-yahanada Maleesiyaanka, waxay qoraaladooda ku soo bandhigayeen cawaaqib xumada ay leedahay arrintaani. 5 sano kadib dawladda Malaysia waxay cilmi baaris ku samaysay mashruuci, waxaana cilmi baaristaas lagu sameeyay 10,000 oo iskuul oo ku kala yaala daafaha dalka. waxay cadeysay daraasadii cilmi baaristii lagu sameeyay goobaha waxbarashada inay hoos u dhacday waxbarashadii ardayda Maleesiyaanka, oo waxaa la ogaaday in ardayda badankood aysan fahmin casharada ku baxa afka Ingiriiska. Tani waxay keentay in 1 sano kadib ay dawladda Malaysia joojiso in afka Ingiriiska wax lagu baro carruurta iyo guud ahaan ardayda dalka, waxayna dawladdii amartay in dib loogu laabto afkii hooyo ee Malayga ee hore looga tagay. Dhanka kale waxaa jira dawladda maanta hormuud u ah socdaalka geediga teknoolajiyadda, kuwa oo shalay ku jabay dagaalkii labaad ee adduunka, laakiin ka fogaaday in carruurtooda wax ku baraan dawladihii dagaalka kaga adkaaday afkooda, waxaana ka mid ah wadamadaasi Japan iyo Jarmalka. waxay sheegeen khubaradooda inuu u sahlay afkooda inay si heer sare ah wax ugu bartaan oo ay noqdaan aqoon-yahano hal abuuro leh. waxaa sidoo kale la mid ah dawladahani Japan iyo Jarmalka dalka Sweden, ka oo aan ogsoonahay in tir ahaan dadkiisu aad u yar yihiin laakiin wax ku bartaan afkiisa. Tanina waxay sababtay inuu waddanka yeesho saynisyahano badan oo hal abuuryaal ah. Gabagabadii waxaan ummadda Soomaaliyeed ka rajaynayaa inay u soo laabato afkeeda waxna ku barato. Soomaaliyey tooso isku diirsadae hadbakiina taag darane taageera weligiine Soomaaliya